qodobada wararka kuwa ugu doorka roonna waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya kulan xasaasi ah kula qaatay beesha caalamka. Haddaba maxay ka wada hadleen muuqaalkan oo dhameystiran ayaad ku ogaan doontaa daawade. Qodobada kalena markaasi waxaa qayb ka noqonaya markaasi dowladda Turkiga oo markaasi ciidamo isugu jira kuwa cirka, dhulka, badda dowladda federaalka Soomaaliya u tababaraysa. maxaa xilligan ku soo aaday in Turkiga uu markaasi ciidamo u tababaro dowladda federaalka Soomaaliya? maxayse tahay ujeedada ay ka leedahay? Qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in lagu meelmariyo cutubyada dhiman ee dastuurka dalka ayaa shaki xoogan laga muujiyay xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin muddaxileedka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. qodobadaas iyo sidoo kale qodobadii nagu soo kordho ayaan idinla wadaagi doonaa saaxiibayaal. marka hore soo dhawaada haddii aad marka ugu horeysan soo boqoto fadlan YouTube-kana subscribe saar, muuqaalkan like saar, siina share garay. wixii fikirkaagana qaybta hoose ee faallada noogu reeb. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena. mahadsanid daawade. aynu ku bilowno. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta magaalada Nairobi kulan kula qaatay wakiilada beesha caalamka. kulankan ayaa waxa uu si gaar ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ula qaatay safiirka qaramada midowga Yurub, UK, Denmark, Canada, France, Germany iyo sidoo kale siyaasiyiin sarsare oo markaasi diblomaasiyiin ah oo ka tirsan safaaradda USA, Switzerland, Finland, France, Netherlands iyo sidoo kale bangiga loo yaqaan World Bank. kulankan waxaa looga hadlayay xaaladda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo siyaasadda, iyadoo sidoo kale madaxtooyadu ay sheegtay in Puntland markaasi lagu bogaadiyay howlgalka ay argagixisada kaga ciribtirayso deegaanadeeda iyo sidoo kale hirgelinta dimuqraadiyadda. kulankan ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay arrimaha bini'aadanimada iyo sidoo kale iskaashiga horumarineed, sida iyo sidoo kale xogaha iyo macluumaadka aynu helayno ay warinayaan. safiirada ayaa inta uu kulanku socday waxay madaxweynaha Puntland ku booriyeen ka qaybgalka gogosha wadatashiga qaran, kaasi oo casuumaadiisu ay fidisay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. waxaa madaxweynaha maamulkaasi Deni kulanka kala qaybgalay wasiirka arrimaha gudaha maamulka, wakiilka arrimaha siyaasadeed iyo sidoo kale xiriirka caalamka iyo sidoo kale agaasimaha guud ee markaasi madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland. si kastaba ha ahaatee, kulankani ayaa qayb ka ah shirar ay beesha caalamka la yeelanayso hogaamiyaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka si uu u qabsoomo shirka wadatashiga qaran ee dhowaan ee cilaamisay dowladda federaalka Soomaaliya oo markaas uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay ee Yurub ayaa si wadajir ah culeysyo siyaasadeed u saaraya iskaashiga mucaaradka ee golaha mustaqbalka Soomaaliyeed si ay u aqbalaan casuumaadda dowladda federaalka Soomaaliya ee gogosha wadatashiga qaran. wakiilka beesha caalamka ayaa adkeeyay in xilligani xasaasiga loo baahan yahay wada hadallo markaasi loo dhan yahay si loo gaaro is-afgarad ballaaran oo ku saabsan hanaanka doorashooyinka ka hor inta aysan dhammaan muddada dastuurka ah ee hay'adda dowladda federaalka ee Soomaaliya. iskan beesha caalamka ayaa ku soo beegmaya xilli hogaamiyaasha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay weli ka jawaabeen casuumaadda dowladda ee shirka furmaya kooda February ee sanadka 2026. Soomaaliya ayaa wajahaysa loolan siyaasadeed oo waqtigiisu sii dhamaanaya, iyadoo muddaxileedka hay'adda dowladda federaalka Soomaaliya uu markaasi dhamaanayo bartamaha bisha May ee sanadkan. si kastaba, ismariwaagan ugu weyn ayaa salka ku haya nooca doorashooyinka ee markaasi uu dalka galayo, iyadoo markaan siyaasadda Soomaaliya ay guud ahaanba markaasi soo faragelisay beesha caalamka oo markaan shirar kala duwan kula qaadanaysa markaasi madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ee ka socda gudaha magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. dhinaca kalena dowladda Turkiga oo markaan ciidamo isugu jira kuwa cirka, dhulka, badda u tababaraysa dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya tababar u sameynaysa cutubyo cusub oo ciidan ah, kuwaasi oo si dhameystiran loogu qalabeynayo agabka markaasi ay ku howlgali lahaayeen, sida ay sheegeen ilwareedyo kala duwan oo markaasi aanu la xiriirnay. ciidamadan ayaa ka kooban kuwa dhulka, badda, cirka si loo adkeeyo amniga guud ee dalka Soomaaliya. xukuumadda markaasi uu hogaaminayo madaxweynaha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale kordhisay muddada ay joogayaan ciidamada Turkiga ee ku sugan Soomaaliya, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga, waxaana garab socda macallimiin door muhiim ah ka ciyaaraya tababarka ciidanka qaranka Soomaaliyeed. joogitaanka militariga Turkiga ee Soomaaliya ee badaha ayaa sidoo kale si weyn ula jaanqaadaya amniga tababarta ee Ankara ay ka leedahay xeebaha Soomaaliya.
Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexeeya iskaashi militari oo ballaaran kaasi oo diiradda markaasi saaraya sugidda amniga, tayeynta ciidanka ammaanka, tababarka cutubyo cusub iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira dhinaca militariga sida ku cad heshiiska ay gaareen labada dhinac. Turkiga ayaa horey u tababaray ciidamo gaar ah oo isugu jira commandos iyo booliis oo si heer sare ah markaasi loo diyaariyay, sidoo kalena waxa uu diyaariyay askar kooban oo markaasi ku takhasustay duulista diyaaradaha casriga ah kuwaasi oo loo qorsheynayo markaasi in la kordhiyo. Si kastaba, xukuumadda Muqdisho iyo Ankara ayaa markaasi wada hadalka jadwalka rasmiga ah ee tababarka lagu bilaabayo, tirada guud ahaan ciidanka la diyaarinayo, sidoo kale arrimaha farsamo ee markaasi la xiriira howlgalladaasi. Qodobada kalena markaan waxaa qayb ka noqonaya qorshaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dooneyso in lagu murmuriyo cutubyada dhiman ee dastuurka dalka ayaa shaki xooggan laga muujiyay xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin muddo-xileedka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa isa soo taraya walaaca laga muujinayo dedejinta qorshaha wax ka beddelka dastuurka, iyadoo markan ay soo baxayaan baaqiyo looga digayo cawaaqibka ka dhalan kara degdega markaasi lagu hayo dukumeentiyada masiiriga ah. Xildhibaan Maxamed Aadan Cabdiraxmaan Caanoy oo markaasi ka tirsan Xildhibaan Maxamed Aadan Daahir Caanoy oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa walaac xooggan ka muujiyay hanaanka Villa Soomaaliya ay ku wado wax ka beddelka dastuurka. Sidoo kalena wuxuu su'aal geliyay suurtagalnimada in muddo isbuuc ah lagu akhriyo laguna ansixiyo dastuur qaran, isagoo yiri dastuurku waa heshiis ugu sarreeya ummadda Soomaaliyeed, mana ahan dukumeenti lagu dedejin karo go'aan kasta oo aanan wada tashi lahayn waxa uu dhaawacayaa mustaqbalka qaranka. Xildhibaankan ayaa dalbaday in la helo waqti ku filan iyo dood hufan oo markaasi ay qayb ka yihiin dhammaan saamileyda siyaasadeed ee dalka, xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhowaan fidiyay gogol wada tashi qaran, taasi oo qorshuhu yahay in magaalada Muqdisho ay ka qabsoomto 1 February ee sanadka 2026. Walaacan ayaa imaanaya xilli hore oo markaasi ay u qaadaceen hawsha dib u eegista dastuurka maamulka Puntland iyo Jubbaland, iyadoo sidoo kale xubnaha ka tirsan mucaaradka oo aaminsan in madaxtooyadu ay ku booweyso gacanteeda go'aanka masiiriga ah ee dalka. Arrintan la xiriirta dastuurka Soomaaliya ayaa galay xaalad adag oo nugul, iyadoo sanadka 2026 loo arkayo mid door weyn ka ciyaari doono jihada mustaqbalka nidaamka federaalka iyo sidoo kale deganaanshaha siyaasadeed ee dalka.